waxa uu ku fiday halkaas 1000 sano ka hor. Suufiyaduna waxa ay qayb ka ahayd caydhinta gumaystihii cadda ee Faransiiska. Tani waa sheekada Islaamka ee Senegal. marka aad ka fikirto Senegal waxaan shaki ku jirin in waxa ugu horeeya maskaxdaada ku soo dhacay ay tahay weeraryahanka la holin waayay oo ciyaara kooxda Liverpool isla mar ahaantaana Muslimka ah Sadio Mane. laakiin weligaa ma kugu soo dhacday inaad isweydiiso sida Islaamku ku soo galay Senegal iyo inta muslimiin ah ee dalkaasi ku nool. gelitaanka Islaamka ee Senegal. Islaamku waa diinta aqlabiyadda ka ah Senegal waxaana lagu qiyaasaa ku dhawaad 94 dadka ku nool waddankan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika inay yihiin muslimiin. sida ay xustay mareegta Muslim Population, badanaa muslimiinta Senegal waxay haystaan mid ka mid ah dariiqooyinkan suufiyada ah sida Tijaaniyada, Qaadiriyada, Muriidiyada iyo Laatiiniyada. marka laga hadlayo taariikhda Islaamka ee Senegal waxay dib ugu noqonaysaa ilaa 1000 sano ka hor iyadoo loo soo maray dariiqada boqortooyooyinkii boqortooyada Takrur waxay ka koobnayd dadyoga ka soo jeeda qowmiyadaha Siriri, Wolof iyo Fulani oo ah kuwa ugu da'da weyn qowmiyadaha dega Senegal. xukunka boqortooyadani waxa uu ku fidsanaa galbeedka Suudaan ilaa xeebaha badweynta Atlantic oo ah dhul aad u ballaaran oo ka ballaaran deegaanka Sham iyo jasiiradda Carabta oo la isku daray. boqortooyada Takrur waxa ka mid ahaa wadamada hadda loo yaqaan Senegal, Mauritania, Mali, Nigeria, Niger, Chad ilaa xuduudda Darfur ee Suudaan. inkastoo waqtigaas boqortooyadani ay xoog lahayd, haddana Islaamku si mutadawacnimo ah ayuu soo galay dalkaasi iyadoo aanay jirin wax dagaal ah sida lagu sheegay website-ka Ilmi Feed ee ka soo baxay Ingiriiska una gaar ah arrimaha taariikhda Islaamka. dadka reer Senegal ayaa markii ugu horeysay qaatay diinta Islaamka qiyaastii 850kii iyagoo isdhexgal la sameeyay muslimiintii baayac mushtarka ahayd ee ka yimi waqooyiga Afrika, gaar ahaan kuwii ka iman jiray Liibiya, Tunisia, Algeria iyo Morocco. laakiin qaadashada diinta Islaamku waxa ahayd mid lala qajilo ilaa sanadkii 1030 markaasoo boqorkii Takrur Wardiyaabe uu ku dhawaaqay inuu qaatay diinta Islaamka isla markaana uu shareecada Islaamka soo geliyay shuruucdii dalka lagu dhaqeeyay, taasoo keentay in haldoorkii bulshada, raggii boqortooyada iyo aqoon-yahanaba ay ku garab istaagaan arrinkaasi. caalimkii Marookaanka Al-Idrisi ayaa isagoo ka hadlaya boqortooyada waxa uu yidhi waa boqortooyo ganacsigeedu faa'iido dhal yahay, bulshadeedu tahay bulsho daacad ah waxaana ay ka mid yihiin xayndaabka boqortooyadaasi. hogaamiyahoodu waa nin awood, dhimirsanaan iyo dulqaadba leh, caana ku ah cadaalad, dalkiisuna uu yahay mid nabad ah oo degan.